dunida oo dhan waxaa walaac ku abuuray cudurka coronavirus ee ka dilaacay dalka China kaas oo dad badan noloshooda ay ku waayeen. waxaa jira kumanaan kale oo qaba xanuunkaas. dhimashada ayaa sii kordhaysa sida saraakiisha caafimaadka ay sheegayaan tani wixii ka dambeeyay markii uu cudurka dilaacay. safiirka dalka China ee Soomaaliya u fadhiya Shin Jayan oo Muqdisho jiraad ku qabtay ayaa xusay in dhankooda ay wadaan dadaalo ku aadan sidii cudurka loo dabargoyn lahaa. People's life, security and healthy are the first priority. Premier Li Keqiang led Central Leading Group on the responding to the NCP outbreak. dhinaca kale safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka China Cawaale Kulane ayaa dhankiisa sheegay in ay jiraan dhalinyaro badan oo Soomaali ah kuwaas oo wali ku go'doonsan magaalada Wuhan ee cudurka ka bilowday. xaaladda dhalinyarada ku jirta dabcan magaalo karantiilaysan qof ku jiro xaalad ku jiro oo tii ugu fiicneed ah laakiin way caafimaad qabaan. wadamada dadka soo daabuleeyay hadda horena uga hadla haddana waa idin sheega wadamada maxaa lahaa Soomaaliya kala la midka ah in dadka loo soo qaado ma ayaga ma soo qaadin. waxaan rabnaa inaan fahamno caqabada ugu weyn oo jirta dadka inay ogaadaan. caqabada waxa way meesha cudurka ka dilaacay epicenterka Wuhan oo kale. saraakiisha caafimaadka ee dalka China ayaa soo saaray war ku aadan in la yareeyo cunista xayawaanada qaar oo laga cabsi qabo in fayraska cudurka uu ka dhashay. ugu dambeyntii safiirka dalka China u fadhiya Soomaaliya ayaa caafimaad u rajeeyay dadka qaba xanuunka coronavirus ee dalka ka dilaacay.